يا ورياضي جايس حاجان شوغا شدان كسكن أروح كأنه كمان أنا رجع ذو هالك قلل سمبل كوني ها هذا 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 بس يلا بتودك غير كيتشس هاي كنت تقول شقيت ما يور أنا وسعتها أنا هاي عارف كده عنك بس ما راح محي يا نين بيجريني حيا جايجينا مي وأنا عاوز كوسا قاعد سيشوف سوى سر كسر هاي هالكاسين في العوض هاي يا هاي يلا أبهاي أنا ويا يولد هو يدا يسوكر سير سد داشي مركي أنا وينادينا يدا ينسي وحنا المعلومات كذا كسر كذا شقة اسمها أكولية يو والحليستا أوتيل نسيب درو oo iyadoo iga fogaatay waxaanay tagtay meel aan wiligeed ka soo noqonay qofkii labaad ee farxad siin jiray isna wuu iga fogaaday waan waayay markaas ayaan go'aansaday inaan imaado kaynta oo aan iskaga noolaado aniga ila noolo maanta loo halkan taaqas ayaan kugu dariyay ra تلاو إن أنتي الحالة تولها هل كان يقول أرك دنبس الله لا إيميل أنك دونا قرن معي راعس بوم باهنا يا إلا إسكت دبر السعودية بنقص وبنقول القبول الله لا 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 لقيت كليرة ترى الله ده حقيقة فقام يصير الله راعستي دوا من كهلا به كيف قام يصير في معامل كاسك داون لو تيرنا هالكي مرت يا هنا كيرا ما هيو هنا تيرد ما هيو اللي له محي سوت اللي له يسودوي أو يصبر برعيالك مدبر مال بيجاه لومي بل الله اللي ميل كره دي قرن ما هيو ركن عددا بسم الله الرحمن ناو بحاي وبحاي
بسم الله الرحمن الرحيم واه إله يسودوي الله شاكي ويخرج laba ayay talo hooyadii xagee ka dhacday meeshan wada cabsida ee laga baqanayo in la ilaahayo maxay soo watay talo hooyadii xagee qabatay magaaladii buu baxday talo Musa Cabdiraxmaan bay heshay الله وتردارك هويدي horta maxay ahaydane qofka haduu ilaahay ku xidhan waxma waayo boqolkiiba koowde adiye marka aniguna aad waxaan ugu faraxsanahay inaan kaygan jeclahay inaan caruurtiisa arko ma fahanti adiye shacabkayga ha khasaarin hooyo dib ha u noqon ee ii ballan qaad inaad noqoto nin meel iska soo saara ha eegin caqabadaha adag ee ku hor yaalla noloshaada hooyo sidaa ku dhiso oo dhabar adayg yeelo nin noqo oo hooyo heer gaadh hooyo waxaan kugu dardaarayaa oon kugu adkaynayaa inaanad joojin guurkii ubax hooyo waa ina wanaagsan ood isku nolol iyo isku duruuf ku soo korteen waana gabadh aad og tahay inay heer ku gaadhsiinayso oo ay kugu dadaalayso hooyo anigu haddaan kaa fogaaday ma doonaya inaad murugootid ood oydid ee noloshaada ay dib u dhacdo sidaan iigu wanaagsanaa aygan cudladan baan jooga sidanna waxba iguma soo kordhayaan inantii hooyaday igula dardaarantay iguna adkaysay farxaddeedana ahayd inay marun aragto annagoo qoysa waan iska erin hooyaday shaqayso oo nin noqo ayay igula dardaarantay halkanna waan meeraysanayaa waa inaan noloshayda beddelaa oo aan xaafaddiis kaga laabta xataa meelaan wadadii kaga dhaca ma garanayo markii waadhadan meelaha ka raaci lahaa qodxay dhameen nafta ii keena ma noolahayba maxaad samayn lahayd haddii ay jiraan xujooyin hooyada ay kugu dardaarantay oo ay rabtay inaad ka soo baxdo kadibna aad dayacday ma dhici karto waayo waalidka dardaarankiisa waa la fuliyaa aad baana loo adkeeyaa haddaba waa noqonayaa waxaanan fulinayaa dardaarankii hooyaday waanan kaaga mahadcelinayaa sida hiilkale aad ii qaabishay qufacan karoono wuxuu lahaynay ganacsigii buu naga xidhay yaro xaabxaaba ayaa stoobka igu hadhay intaas ayaan cirka geenaya ee maxaa iga galay gabadh baad ka tirtay u joog war joog u joog waaru jooga dee ubax gaadhiga istaaji warii joog ubaxay gaadhiga istaaji may maqli
soo xirinayaa ciidda kaygana ilaa badda daadi qaarna waddoonkii buraha gaadiidkii soo mara ayay dhufaysay kaga jiraan. cabdiraxmaan xasadan oo dhan iiga fogaad hooyo kayntaa ayay igaga luntay aniguna xalay oo dhan halkan baan wareegeysanaya adoo ku raadinaya waan ku baryayaa mar dambe kaa cadhaysiin maayo ha iga tegin intaad iga maqneed waxaan dareemay kelinimada iyo cidlada xanuunka lahay iga raali noqo noloshaydii qalad weyn ayaan kaa galay go'aan qaldanna waan qaatay laakiin waxaasoo dhan igu kaliifay markii aad adigii hooyadayba iga fogaateen ayay nolosha cidhiidhi igu soo noqotay ayay afartii gidaaree guriga cidhiidhi igu soo noqday laakiin waa ballan inaanan mar dambe qaladkaasoo kale noloshayda aanan ku dhaqaaqin laakiin hooyo maxaa ku dhacay sidee u lunta hooyo xaggeyse ku luntay hooyo markii aan adiga ku raadinaynay dab inta halkaa ay ka aragtay way ku tiri dabkaasaan kasoo yeelaya dadkaasaan soo weydiinaya kadib soo daba soco annagii waa is weynay markii dambe marka meeshii ma garan intaas xaggan miyaa ina markaan soo raadinay marag xarfaana cidnana ka shekeynayso xabadda boorta kor u taagtana boortooda kaafe laga sameeya hubqaad beauty salon waxay waxaan ku yidhi meeshii aan xalay dabka ka shidanay meelahan bay haydee anigu garan maayo kale dee walaa meelahan oo kale aan marmaraynayo meelahan oo eeg meelahan oo kale meesha iga dhaqaaqday igu lahayd waan ka soo noqonayaa halkan oo kale ay hayd waxaan u malaynayaa inay magaaladii qabatay may bartaas ahayd anaa garanaya barta xalay halkan dabka shidanay waan garanaya maaha intan oo dhan baan xalay waddankan baa joogay dee inay magaalada qabataan malaynaya haddaba anu ya magaaladii inay qabataan malaynaya magaalada adigoo saanay soo qaban kartaa adoo magaalada iyadoo aan adiga ku kaxayn ma qaban karto ya ma halkan bay kaaga tegi lahayd waxaa laga yaabaa inay meelahan joogto ama ay kayn weeye waddanka soo maha namar way raadinaynaa reer baro baran hal hooyo hadda samara hooyo wayadiye ala wayadi wallahi hooyo warnogi namarku noqonay wani kulaha meeshun bay joogtaa tii hooyo waan qaldamay go'aan degdeganoo waan qaatay anoon waxba idin kala tashana waan iska tegey alla oo halkana maxaa kaa jeeximay narkeena halkan waa caadi go'aankaana wixii inaga macnaha inaga soo gaadhay way inaga soo gaadheen laakiin waxaan idiin ballan qaadaya inaanay dib arrintaas u dhicin hooyo iga raalli ahaada hooyo waad og tahay inay hooyadaa mar walba kugu dardaari jirtay oy jeclayd inaad nin raga noqoto ood meel un ka soo baxdo oo sidii aad u shaqaysan jirteed u dadaali jirtay iyo si kasii fiican hooyo aad u sii dadaasho hooyo annagana hana dhibin adiguna dardaarankii hooyadaa hooyo ha ka dhigin hal bacaad lagu dhisay oo hooyadaa ha khasaarinine dardaarankeedii qaado hooyo wax jira ka dhig nin noqo oo meel iska soo saar waxaana mar dambe ha u noqonin عبد الرحمن عبد الرحمن كاع قراعه وحل دنبه ها وحل دنبه قراعدينا halkan aan ku dhiga soo bax xageed iga taysaa kale igu helaya inaan kula hadlayaan rabaa waxaan doonayaa inuu guurkeenu degdeg u dhaco
cidlo badanna waan dareemayaa miyaad igu diidi doontaa ma hadlisid miyaa naasareedo hee ubadkan maxaa ka dhaxeeyo isku dhajiyey waxaa isku dhajiyay baa ka dhaxeeya annagoo arooskoogii gacanta ku haynay marxumadii ka dhimatay annagaa diyaar u ah waana ka qayb qaadanayna ee imika aynu isu dhisno hee hooy guurkii waan ogolaaday abdiraxmaan nimankaana garabkiisa noqonaya mar dambena kaama soo horjeedsanin hooyaali na annaga marba dhinaca noo raacina dhinacuu ku adkayso anoo laba calabcelina marba dhinaca noo raacina ku adkayso dhinacuun waa maxay noloshan hooyo waxba kaa khaldan inan baa tahay waa run hooyo wax kastana waanu dhamaysay waananu ka heshiiyey meherkeena inoo dhacan baa naaday waxaan u baahannahay adiga garabkaada waayo adiga labadeeda hooyo hooyo adigunba hooyo nooda ah labadeedaba anigu hooyo kale ma haysto waxaan rabnaa in guurka degdeg loogu dhaco aniga ayaa hooyo ku garab taagan kuu noqonaya waxbana ma xumaanayaan arooskuna si degdeg u dhacaya iminkan adeegyadeed wargelinaya adiguna la hadal adeerka fariin caafimaad oo ku saabsan fayraska corona si joogto ah ugu faraxalo biyo iyo saabuun joojiya iskacaada halo adeer igu run adeer masha allah hadda ka run aan fiican adeere arrintii aan maalintii dhoweyd kuu sheegayay ayaan way dhan tahay waan dhameeyey markaa waxaan rabaa inaad hawshay la geshid